mis weydiisay sababta Allah subxaanahu wa ta'ala suuradan oo Quraanka kamid ah ugu magac daray shinnida ma ahan kaliya makhluuq malabka soo saara ee waa tiirkay ku taagan tahay nolosha aadanaha ee dhulka. Saynisyahanadu waxay ka digaan haddii ay shinnidu dabargoodo bini'aadamka inuusan noolaan karin in ka badan 4 sano. Maanta waxaan daahfuri doonaa sirta ka dhaxaysa shinnida iyo nolosha bini'aadamka iyo mucjisadan yar ee lagu sheegay Quraanka Kariimka. halkan waa kanaalkeena cusub ee fahamka nolosha. waxaan ku soo gudbinaa xaqiiqooyinka iyo xogta caalamka. Subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada xiga. In ka badan 1400 oo sano ka hor Quraanka Kariimka wuxuu sheegay xaqiiqooyin hadda kaliya cilmi baarista ay gaartay. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri Quraanka: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Rabbiga wuxuu u waxyooday shinnidu inay guryo ka samaysato buuraha iyo geedaha. Halkan waxaa ku jirto mucjiso naxwaha luqadda Carabiga. Allah wuxuu isticmaalay falka dhidiga marka uu la hadlayay shinnida shaqada qabanaysa. Wuxuu cadeeyay inay tahay tan dhidiga ah. Wuxuu la hadlay tan dhidiga ah. Cilmiga maanta wuxuu xaqiijiyay in shinnida malabka keenta gurigana dhista ay tahay tan dhidiga ah, halka labka shinnida aysan shaqadaasi qaban. Ya u sheegay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam, jawaabtu waa Allah. Haddaba maxaa dhacaya haddii makhluuqan yar dunida ka lumo? Gaajo baahsan. Shinnidu waxay mas'uul ka tahay pollination-ka in ka badan 70% dalagyada aan cuno. Haddii shinnidu la waayo, ma jiri doonaan yaanyo, kafey iyo inta badan khudaarta. Dhaqaale lumid. Adduunka waxaa ka lumi lahaa dhaqaale gaaraya bilaayin dollar maadaama wax soo saarkii beeraha uu istaagayo. Silsiladda nolosha. Xayawaanka kale ee cuna dhirta ayaa dhiman lahaa, taasoo ugu dambeyntii horseedaysa in dadka waayaan hilib iyo caano. Haddii aad intaas soo gaartay, aan ku wada salino xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quraanka wuxuu kaloo sheegay in caloosha shinnidu uu ka soo baxo cabitaan midabo kala duwan leh oo daawo u ah dadka. Cilmigu wuxuu cadeeyay in malabku yahay midka kaliya ee aan halaabin isla markaana leh awood uu ku dilo bakteeriyada, waana mucjiso rabbaani ah. Shinnidu waa askar kamid ah askarta Ilaahay ee loo xil saaray inay u adeegto bini'aadamka. Haddii aan daryeeli weyno deegaanka, waxaan khatar gelinaynaa jiritaankeena. Saaxiib, haddii intaan la soo gaartay, fadlan akoonka subscribe video like saar noona sii share galay mahadsanid.